kadib wadahadalo dheer oo ilaa xalay ka soconayay magaalada Muqdisho gaar ahaan guriga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee Miranaayo ayaa ugu dambeyn waxaa la soo gabagabeeyay dhammaan wadahadaladaasi oo guuleystay kadib markii waawaan ay ka dhex bilaabeen halkaasi saraakiil uu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Shuute iyo taliyaha ciidanka xoogga oo markaa u istaagay daminta colaad iyo sidoo kale dagaal mar kale ka dhac halkaasi marka laga taray saraakiishaasi waxaa jira wada hadal iyo sidoo kale oo qadka taleefanka ah oo dhex maray madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxda beesha caalamka oo ay markaasi wakiilo ka ahaayeen Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga ayaa waxa ay qadka taleefanka la soo xiriireen madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona kala hadlay in marnaba aysan suurtagal ahayn in xabad kale la rido oo la weeraro madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed iyagoona uga digay arintaasi sidaas la mid ah madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed ayay la hadleen xubnahan ka socda beesha caalamka iyagoona dhankooda u ballan qaaday in marnaba xafiiska uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee himilo qaran ee guriga madaxweynihii hore Ali Mahdi aan marnaba la taaban karin sidoo kale waxa ay damaanad qaadeen beesha caalamka in gaadiidka iyo ciidanka uu wato madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed in marnaba aysan dawladda la wareegi karin waxaana halkaasi isaga guuray oo ka soo dhaqaaqay gurigiisii horena ku laabtay Shariif Sheekh Axmed iyo xubnihii kale ee la socday oo xildhibaan u badnaa isagoona markaa la guuray ciidankii iyo sidoo kale gaadiidkii dagaalka ee labadii maalmood ee u dambeysay difaaca kaga jira halkaasi ee dagaalka adag ay ku mari waayeen ciidanka dawladda haatan waxaa soconaya wadahadalo kale oo la doonayo in xiisadda lagu sii qaboojiyo isla mar ahaantaana lagu dhameeyo khilaafaadidii sababay gacanka hadalka ee muddo kororsiga Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya loo istaagayo sidii looga wada hadli lahaa muddo kororsiga madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud uu sameystay si meesha looga saaro dhammaanba khilaafaadida gacanka hadalka sababay mucaaradka ayaa dhankooda wada dadaalo xooggan oo ay ku doonayaan in indhaha caalamka ay ku soo jeediyaan madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud oo doonaya in kursiga uu sii fadhiyo iyadoona sidoo kale madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa wado in awood military uu ku maqooniyo mucaaradka laakiin taasi ay hadda suurtagal weeday marka la eego awoodii military ee uu saaray xalay ilaa habeen hore oo suurtagal weeday in gabi ahaanba uu soo afjaro xarumihii ay degnaayeen mucaaradka gaar ahaan Bermuda iyo sidoo kale Miranaayo laakiin wada hadal lagu dhameeyay dhammaan arrimahaasi markii ciidamada dawladdu ay mari waayeen ama ay jiiri waayeen goobihii ay degnaayeen mucaaradka hadda waxaa laga warsugayaa sida madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha caalamka ay ugu soo celiyaan miiska wada hadalka isla mar ahaantaana la dhameeyo ama laga heshiiyo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa dagaaladii labadii habeen u dambeysay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo xiisadii ka taagnaa 48 saac la soo dhaafay ayaa salka ku haya muddo kororsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameystay iyadoo hadda la doonayo in dhammaan arrimahaasi laga wada hadlo dagaaladii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho 48 saac aynu ka soo gudubnay ayaa sababay hurgumo iyo sidoo kale aanooyin kadib markii ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre uu ku goodiyay in ay garanayaan cid kasta oo weerar ku soo qaaday mucaaradka gaar ahaan gurigii uu markaa kaga sugnaa Bermudo oo uu sheegay in rag ku heeba madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud ay duqeyn ka geysteen xaafadaasi isla mar ahaantaana isla xisaabtan uu jiri doono sidaas si la mid ah Shariif Sheekh Axmed ayaa isna dhankiisa tilmaamay in marnaba uusan cafin doonin cid kasta oo xabadda ku soo riday waa kan Xasan Cali Khayre oo arrimahaasi ka hadlaya iyo Shariif Sheekh Axmed oo ku goodiyay in isla xisaabtan uu ka dambeyn doono dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho labadii habeen ee la soo dhaafay saraakiishi xalay oo dhan annagana weeraraysay oo na soo xabadeynaysay haddana sheekha u socota oo annaga noo soo weeraraysa inay nalayso iyagoo noo leynaya ilaalinta xukun sharci darro ah oo ku fadhiyo qof waqtigiisu dhamaaday waa idin naqaanaa waa idin ognahay magacyadiina naqaanaa waa noo bareerteen sharci darraad noogu bareerteen ma la idinka yeelaayo ma leys ilaawayo annaga waxaan rabnaa saraakiilaad tihiin ciidanaad tihiin ku ekaada ciidannimadiinna idinkoo qof shaqaynaya nama soo weerari kartiin
saraakiisha ciidamada waxaan leeyahay xabad ha igu soo ridin ciidankayga xabad ha ku ridin dadka ii socda ka leexa wiilasheediyaati haddaad yeeli weysiin adduun aakhira kala harimay wallahi inaanan kala harin waana ogtihiin dalkan waxaan u soo nin cabsanaya oo cararaayana maaha aniga hal baalood hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo rido oo kusoo rido waa ku ridaaya oo ilaahay ugu ogyahay. hadallada guudiska ee mucaaradka ka imaanaya ayaa u muuqanaya kuwa saameyn ku yeelan doona dhammaanba saraakiishii hogaaminaysay weerarkii lagu qaaday mucaaradka ka oo ay markaasi dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen.